xarunta hoggaanka baarista dambiyada CID ee booliiska Soomaaliyeed oo lagu dayactiray barnaamijka isxilqaam oo ah mid lagu dhisayo xarumaha dawladda si iska wax u qabso ah ayaa waxa xariga ka jaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo weliyo wasiirka amniga isagoo taliska booliiska Soomaaliyeed ku bogaadiyay tallaabadan wanaagsan oo ay ku dayactireen xaruntan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhammaan kormeeray qaybaha kala duwan ee xaruntaasi si uu indhihiisa ugu arko qaabka ay u shaqeyso waxaana ka mid ah xafiisyada la tusay qaybta ay yaalaan qalabka lagu baaro faldambiyada kala duwan sida kuwa lagu ogaado noocyada qaraxyada oo casri ah taasi oo soo jiidatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo 6 gaari oo cusub kuwa oo ay leedahay hoggaanka baarista dambiyada ee CID waxaana ka mid ahaa gawaarida loo yaqaano jambarka oo ah kuwa dilanadwaaga kala duwan. wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa tilmaamay in wasaaradda amniga ay ku faanayso in ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay noqdeen hormuudka barnaamijka isxilqaam oo ay ku dayactireen xarunta CID-da. ujeedaan waxay qabteen sabab muuqda su'aal ka dhan waa si fiican ugu socotaan waxaan rabaa sidoo kale barnaamijkan uu daahfuray madaxweyne Maxamed Abdullaahi Maxamed Farmaajo oo isxilqaam ah anigu waxaan leeyahay caawa farxadii ah wasaaradda amni ahaan booliisku waxaa la yidhaahdaa waa hooyadii ciidamada kala duwan qaybahooda kala duwan sidoo kale caawa waxaan u bixinaynaa waa hooyadii isxilqaam booliisku marka ugu ammaanaya aad waa maanaya anoo ifarqinaysa wasaaradda ahaan dadaba waa mahadcelina waxaan rabaa hortiin inaan ka ballan qaado dabaan bishaar in xafladkaada aan ku siin doonaa warmarin dowlaheeda kala bishaar maasantaa shaqada qabatay. munaasabad kooban oo lagu mahadcelinaya taliska booliiska Soomaaliyeed oo xarunta CID ku dayactiray barnaamijka isxilqaam ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka wasiirro uu ka mid yahay wasiirka amniga gudoomiyaha gobolka Banaadir xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida taliyaasha ciidamada booliiska iyo asluubta oo munaasabada ka hadla ayaa xusay in xaruntan iyo xarumo kale oo badan horey loogu dhisay barnaamijka iska wax u qabso wadannimo ku jirto u go'aansaday ama ilqaati go'aankii ahaa aynu marar dhisan intaa ka badan oo ku darmaayo waxaan kaloo ammaanayaa oo bogaad u soo jeedinaya ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo mar walba u taagan inay wax qabsadaan aniga idin hortaagan iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed saraakiil qorshe anoo lagu wiilaynayo qorbayaan booliiska maanta ilaahay moo kasay aniga asaga waa anoo taliyaasha ciidamada qalabka sida inaan xafladaan dib ugu steeday idoo inteeda ilaahay nagu sugo inaan qayb galno. injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dayactirka dhismahan ay ka turjumayso dhaqangalka barnaamijka isxilqaam oo horey ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda. caawa in halkan uu soo bandhigo sabta quruxda badan saddex daqiiqo oo sida quruxda badan loo dayactiray loo hagaajiyay inay ku timid hawl Soomaali iyada ay samaysatay si isxilqaamka loo sameeyey taasoo ku tarjumaysa dhaqangalka barnaamijka isxilqaam oo madaxweynuhu horey u cilaamayay. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baasha Yuusuf Axmed oo booliiska Soomaaliyeed ugu hambaliyeeyay doorkooda dhismaha dalka gaar ahaan dayactirka xaruntan ayaa xusay in dhismaha xaruntan ay qayb ka qaadanayso tayada hoggaanka CID ee booliiska Soomaaliyeed oo tiir muhiim u ah garsoorka iyo cadaaladda. haddii ayna wax istaagigu toosin oo ayna noqon mid togan oo habboon oo xilkas ah oo shaqada ugu geekasta ugu habboon waxaa xaqiiqa ah inay cadaaladda dalka saamayn weyn ku yeelanayso. sidaa darteed waxaan rajaynaynaa sad u qurxisteen daartan sad uga shaqaysteen sad u dhisteen sad u caawi u afurnay shaqada aad qaranka u qabanaysaan iyo dembi baadhista aad samaynaysaan iyo hawlaha aad ummadda u haystaan inaad iyagana sidaas oo kale u qurxisaan ay noqdaan qaar xirfadaysan oo qurux badan oo daacadnimo ku dhisan tahay oo si wanaagsan ummadda loogu adeego oo cadaaladna ku jirto. hoggaanka baarista dambiyada oo ka mid ah hoggaanada ugu muhiimsan booliiska Soomaaliyeed ayaa isku xira
hay-adaha garsoorka cadaaladda iyo nabadgelyada waana halka ay ka soo bilaabato baarista dacwad ciqaabeed kasta. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.